hayo arday baana hayo ubaxii wadankaana hayo. Hello asxaabta, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada cashirkeeni saddexaad ee SPSS-ka. cashirkan maanta waxaan ku baran doonaa sida loo xakameeyo missing data. weliba waxaan baran doonaa tricks aad u xiiso badan. gaar ahaan cashirka maanta waxaan ku baran doonaa 3 shay oo kaliya ah. kow, waxaan rabnaa how to handle missing data. waxyaabaha dadku markay questionnaire-kaaga soo jawaabaan dad baa ka soo tago oo meelo firaaqaha aad questionnaire-kaaga ku heli doontaa. dadkaas sidee yeelaysaa? kow, waxaa kaloo muhiim ah dadka loo yaqaano unengaged respondents. dadka inta questionnaire kaa qaado ee aanan iska siinay 5 ama 1 dadkaasi maaha dad jawaabtooda ay muhiim tahay inaad analysis ku darto, because dadkaasi maskaxdooda ma aysan basiinin questionnaire-kaada, therefore datadaada unbay dilation ku sameynayaan. waxaa kaloo baranaynaa imputation wax loo yaqaano. datada missingka waxaan kala qaadaynaa laba qayb. waxaan dhahaynaa dad xogtooda wax badan ay missing tahay oo tusaale ahaan su-aalaha dhan kama aysan jawaabin 2 iyo 3 marka laga reebo mooye, dadkaasoo kale waan ka saaraynaa analysiska. dad kale waxaa jiro la dhahayo dad kale oo 3 shay ama 4 ka tagay. dadkaasoo kale ma ka tageeno oo analysiska waan ku daraynaa, laakiin 3daas ama 4taas ay ka tagtay waa muhiim inaan xakameyno. arrintan maxaa muhiim u tahay? questionnaire analysiskaadu ma bilaabaysid adigoo missing data haysid ku jiro analysiskaada, sababtoo ah haddii aad rabtid inaad samaysid advanced analysis sida amos inaad isticmaashid oo kale, oo hadduu aad rabtid inaad samaysid modification indices ama bootstrap, waxyaabahaas missing data makaa yeeli doon. marka waxaa muhiim ah maadaama hadda aad bilaabaysid inaaba haddaba aad ka feejignaato xogtaadu hadday wax maqan tahay inaad hadda iska xakamayso. marka 3 shay aan maanta baranayna. intaan cashirka galin aan idin xasuusiyo codsiniga ah, please videogan like saar, channelkan subscribe si aan halkan bulsho Soomaaliyeed oo waxbarashada saaxiib ku ah aan ugu asaasno. aan gudagalna marka. haddii missing value baan ka bilaabaynaa. haddii more than 10% of your data ay maqan tahay, missing value-gu marka 10% jawaabta ka badan hadday maqan tahay, waa inaad dadkaas ka saarta analysiska. dadki 10 wax ka yar oo 5% wix ka sii yar maqan tahay ma ka saaraysa analysiska, laakiin ayagana waad mudufkeenaynaa. we modified these guys. marka aan bilowno SPSS-kaada. normally horta SPSS-ka waxaan u malaynaa inaan isla naqaano soo maaha. waxaan dhahaynaa okay, SPSS-ku datada markaa gelinaysid intaadan gelin ka hor step 1 maxaa waaye questionnaire-kaada oo dhan soo qabo. waxaa u samaysaa numbers ila socya. questionnaire-kaada dhan number 1 waraaqada koowaad dhig, tan kale number 2 3 4. markaad 100 qof jawaabad haysatid 100 kana nambarada aad samaysid, sababta waxa waaye hadhow haddaa qof ka mid a xogtiisa u baahatid waxaa fiirinaya dhinacaan mujida dhinacaan markaa fiiriso, therefore numberka intuu ku yaalo 15 questionnaire-kaada kusoo noqonaysaa. qofka 15aadna waraaqadiisa soo qabanaysaa, waxa u baahad meesha ka saxaysaa. marka stepka koowaad waxa waaye questionnaire-kaada number u sameey. markaa number u samayso inta numberskana hadhow ka turjumi doono. marka hadda waxaan bilaabaynaa inaan isla fahanno SPSS-ka intaan data gelin ka hor qaababka uu u samaysan yahay. SPSS-ka dhinacan waxaa loo yaqaanaa observations. maxaa laga wadaa? waa dadka jawaabahooda. qofkan 1 waa qofkii koowaad jawaabihiisa saan ay u baxayaan. these are halka qof jawaabihiisa waa kuwa. qofkii labaad waa qofkii saddexaad, saas 4 5. marka halkaani waxaa loo yaqaanaa observations, waa dadka jawaabahooda. waxaa ku soo heri column-ka. maxaa laga wadaa? column-ku waxa waaye the variables waaye. questionnaire-kaada inta su'aal uu ka koobnaay, su'aal kasta hal column ay leedahay. gender hal column, age hal column, education same, position-ka mujada. marka columns-ka waa variables, laakiin rows-ka waa observations. observationka maxaa laga wadaa? halka qof jawaab ku siiyaba waa 1 observation. marka halaas waa isla fahanay sooma. marka datadaada markaas samaysid numberna aad samaysid waxaa bilaabaysaa gilis. waxaa leedahay qofkii koowaad soo qabo, then geli datadiis meeshaan 1 uu dhahay 2 3. marka 1 iyo 2 iyo 3 maxaa laga wadaa? daradaan soo code garaynin waa qaybta
variable view min isla socnaa qaybtan daradan soo baranay video kan ku horeey variable view see loo code gareeyaa 1 iyo 2 iyo 3 ga maxay u taagan tahay inta way qaybtan hadda aan ku jirno waxaa loo yaqaanaa date view waa qaybta lagu qoro dadka jawaabahooda halaasaan soo fahmay hadda waxaan rabnaa marka step 1 missing data ma jirto dadkan aan meeshan ku xareynay dadka markaan questionnaire gilgilin waaba aragnimahoo dadka qaar waxbaa ka maqan marka waa gilgilin marka laakiin ka maqnaanshahaasi waa imisa boqolkiiba waa imisa saas arnayna waxaa sameynay marka excel aan mar rab ii fudud control a dheh datadan qaad control c dheh markaa dhacdo then go SPSS kan hadda waaba soo dhigi laakiin SPSS ka soo qaad tusaale ahaan new file for then past halkan ku dheh datadaada mujida markaa past ku dhacdo hadda marka waxaan sameynaynaa step 1 waxa waaye yaa maqan aan fiirinaynaa yaa maqan waxaan sameyn karnaa inaan indheeno laakiin that is cumbersome waa very difficult waay maxaan sameynaynaa instead halkan tag columnka ugu dambeeya datadaada tag oo hadda soo koobiyeysa waxaa dhehaysaa equal markaa equal dhahdo count blank waxaan xisaabeynaa meelaha banaan count blank markaa count blank tagto taabo kadib yaarta ina xisaabtid dadka inta ka bilaabo ilaa iyo meesha ugu horeysa datada waa marka meeshas tag kadib shifti qabo left arrow wat ama shifti qabo home taabo kulli hal mar ku calaameysmi mujida kadib bisha xir korkaas hada ila socotid wixii aan sameynay waa ujeedaa korkaas mujida bish waa xiray kadib waxaan dhahaa press enter okay hadda marka u fiirso waa kana meeshan maxaa ujeedaa waa 0 taasoo micnaheeda ah qofkan ugu horeeyo hal god ma uusan ka tagin god kasta jawaabuu ku siiyey 0 wax ka maqan male qofkaas laakiin dadka kalena meeqa waaye aniga because questionnaire-keyga hadda daa u fiirisiin waxa waaye let me show you questionnaire-keyga that is too much therefore this is my latest questionnaire oo online ku soo arooriyay waay uu badan yahay mujida okay waxa waaye 762 qof mujida meeshaas 762 qof 762 qof questionnaire-kooda marka hal qof ugu horeeyay aragnay halkaas qofka ugu horeeyay wax ma uusan ka tagin laakiin dadka kale waa sidee halkooda ayagana haddaan fiirinayna meeshaan tag markaad tagto meeshaan mujida geeska ah dadka excelka yaqaan aad u fahmayaan meeshaan geeska ah tag meeshaan markay balaas ku noqoto meeshaas click double click ku dheh marka haddana waa ku aadinaa therefore waa balaas double click that means formuladii aan hadda sameynay waxay ku apply garaysmatay dhammaan dadka jawaabahooda therefore si aan u ogaado aaway yaa wax ka maqan yahay inaan fiiriye naqanay marka si aan saas dhan ugu dhigtoonin waxaan sameynaa sort waxaan dhahaa inta tag sort ku sameey waxaa leedahay dadka the largest jawaabahooda ay maqan yihiin korkeen dadka ay waxba ka maqneenna hoosgee therefore meeshaan click ku dheh click hadda maxaa ujeedaa waa kuwa marka qofkan 15 su'aalahaada qeymid ma uusan ka jawaabin qofkan kale waa saas qofkan kale 14 12 11 mujidin muxuu micno ku sameynaa marka qof aan 15 jawaab ka bixin mujidaad meeshaas fiiri it's empty almost meelaha qaar uu ka jawaabo halahan kalena waa empty qofkaasoo kale mabaa mu baahnid 1 15 mu baahnid 14 mu baahnid 14 mu baahnid 14 same adiga dadka hadday marba ka badan yihiin 3 4 5 iska dheh 5 jawaab hadday ka badan yihiin wax ka maqan iska tir marka hadda dadka inta ka bilaabo 6 ilaa korkaas dadka jirdhan waxaan leenahay we don't need them sayelena click dheh kadib kor aad therefore right click delete they are gone waa ku dayin kuwaas marka hadda waxaan baranay dadka jawaabaha badan ka maqan yihiin see lagu soo saaraa kadibna go-aan loogu gaaraa ka saaristooda iyo ka dhaafistooda that is missing data waxaa rabaa kalena xasuusnaatid dad waxaa jira weli data ay ka maqan tahay yaabay waa dadkan 5 4 dadkan maxaa u saari waaye because
jawaabo badanay bixiyeen dadkan therefore muhiim waaye meelaha qaar ee maqan waxaan ku samayn doonaa imputation si fiican la socyaa haddii dadku ay maqan yihiin daatadoodu less than 5% ha tirin high laakiin waxaa isticmaashaa imputation kasoo loo sameeyaa video qaybtiis dan baan ku baranaynaa laakiin hadda ogaalaan ugu tagay marka hadda columnkan ma u baahni yuusan daatadan kale kaaga qasmin ma u baahnid iska tir waa ku dangaaray columnkaas waa gaan hadda waxaan xalinay marka stepkii koowaad oo ah missing data haddii 10% ka badan ay kaa maqan tahay xogta isticmaal wax loo yaqaan count blankina waa aragnaa hadda waa equal taabo count blank bilfur all the columns dooro bisha xir enter dhe kadibna formula ku apply garee adigoo ku pinpointing ku sameynaysa haas ma isla fahna haddii laakiin less than 5% ay maqan tahay ha tirin high maxaan ku samayn doonaa imputation hadhow aan sharxi doonaa that is waa first step the second step waxa waaye dadka loo yaqaano unengaged respondents dadka inta questionnaire iska qabto ee jawaabaha 5 iska siinaya oo attentionkoodaba joogin markay jawaabta bixinayaan oo lazy nima daday ka tahay dad basi ay ka tahay marka dadkaas yeelee dadkaas sidaan yeelena haddana xalinayna normal waxaan sharxaynaa marka intaadan hadda arrintan problemkan kugu dhicin si looga fogaadaa jirto markaa questionnaire samaynaysid always questionnairekaas qaybta ugu dambaysa hal su-aalaa lagu daraa oo la dhahayo attention trap waxa waaye qofku su-aashaas ugu dambaysa questionnairekaada waxay dhahee haddii uu attentionkaada joogay please waxaad doorataa agree qofku marka haddii uu 5 isqobska dooranay ahay su-aashaas ma u aqrin maho therefore 5 uu iskaga sii cabaa waxaa marka hubaala qofkii saas agree ku dooran waaye attentionkiis muu joogo marka always su-aal wax lagu daraa live haddii attentionkaada uu joogo agree dooro qofku marka hadduu attentionkiis joogo agree u doornaa hadduusan jooginna maba joogaba therefore qofkaas ma u baahnid analysis qayb qaada misla fahnay waxaa kaloo la isticmaalaa reverse coding waxaa la lahaa su-aasha markaa qofku weydiisid su-aaltaas lamidoo lidkeeda ah aa lagu xijiyaa kulli ma lagu yeelo su-aalaha dhan laguma sameeyo laakiin laba ama hal su-aala waxaa lagu daraa always dadka lagu kala saaro su-aashaan markaa weydiisid isla iyadii lidkeeda la weydiiyaa tusaale ahaan macallimiinta iskuulku wax kuu dhigo waa macallimiin aad u wanaagsan su-aashaas tu lamid ah oo lidkeeda maxaa waaye macallimiinta iskuulka wax kaaga dhigo maaha kugu wanaagsan waa isla su-aashii oo reverse ah marka qofka haddii tii hore uu dhahay agree tan waa inuu dhahaa disagree sax because waxaa tiri macallimiinta iskuulka wax kaaga dhigo waa macallimiin wanaagsan agree oo ku dhahay waxaa tiri haddana macallimiin dugsiga wax kaaga dhigo ma aha macallimiin wanaagsan disagree noo ku dhaha waa qofkii ku dhihi waaya attentionkiisa muusan joogin marka this is another trick la isticmaalo waay oo reverse coding loo yaqaano laakiin labadaas shayba hadda maanta ma aha waxa aan sharxayno maanta waxaan sharxi doona waxa loo yaqaanaa bliner waxa waaye dadka 5 4 4 1 1 1 wax dhan ka wada dhigo dadkaasi waxaa loo isticmaalaa formuladan standard deviationka la lahaayo dadkaas waa soo qaban doonaa therefore go-aanan ka gaari doonaa inaan tiranayin kale marka hadda waxaa noo geysaa inta noo geey qaybta hadda noo celi okay qaybta markaa noo celiso meesha ugu dambeysa tag markaa tagtid formulada waxaa la isticmaalaa la equal leh kadibna stdv standard deviation tan imaawo mujida standard deviation oo population ku base garaysan waa kadib tab riix kadib kuwee waa kuwa aad tijaabin doonto waa inta ka bilaab ilaa iyo home ka tag bisha xir press enter okay haddaas la soconaya waxaa noo soo baxay 1.7 qofkaas micnihiis waxa waaye 0 hadda ku soo baxo maxaa waaye nin qofka 0 usoo baxdo totally jawaabuhu ku sii halay ahay ama 1 ama 2 ama 3 hal number ku wada siiya qofkaas marka kullamaa 0 loo dhawaado kullamaa qofkaasi uusan attentionkiisa joogin ila soco kullamaa 0 laga fogaadana kullamaa qofkaasi uu jawaabaha si sax ugu jawaabay marka marba haddii 0.8 or 9 or 6 haddii laga bato qofkaas wuu fiican yahay laakiin 0.5 wixii ka yar haddaa aragtid totally qofkaas attentionkiisa muusan joogin marka su-aasha maxaa kuwan se ugu apply gareynaa kuwan kale waa sheegnay dayt see waay meeshan ku aadi oo dhibicda ah kadib markay cross ku noqoto double click see and that's it now waxaan ku sameynaa sortation waxaan dhahaa kuwa ugu yar kor soo marsii haddaantii muhiim yahay kuwa ugu weyn sababtoo ah jawaabta laga tagaan baaray haddana maxaa muhiim ah kuwa ugu yar sababtoo ah waxaan baarayaa dadka 0 u dhow marka waxaan dhahaa
sort smallest to largest. Okay, hadda daa u fiirisid meeshan waxaa ku yaalo 0.7 qofkan maxaa waay xaalkiis waa fiirinaynaa ilan 0 u dhow yahay marka inta haddaa soo aadid fiiri jawaabihiisa inta ka bilaabo 1 1 1 1 okay hal 1.8 1 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 everything is 1 mujida waxaas waa marka waxaan sheegaynaa qofkan attentionkiisa ma joogin. Do you see? Everything is he is giving or she is giving everything the same response. maxaa sameynay iska tir qofkaas qofka kale 0.7 waa isna marka almost waa adig go'aanka gaar marka aragtid 0ga su'aalaha kor tag waxaa fiirisaa 111 muu kugu cabay hadduu 11 ahead then iska tir labadaas marka hadda we don't need them therefore right click then delete. Okay markii hadda saan tahay marka reportkaada maxaa ku qoray reportkeena marka waxaan dhahaynaa u fiirsiyaa waxaan dhahaynaa reportka si fiican isla soconaya we conducted a data analysis data cleanup we conducted a data cleanup and we found kuwa hadayd waxay ahayn meeqo 10 miya kuwa oo responsigooda aan ka saarin meeqo ahayn kuwaas waa we need to go back and see how they looked kuwan meeqay ahayn waxaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay waxaan leeyahay marka 10 kaas we conducted a data cleanup and we found 10 respondents whose responses whose more than 10% of their responses missing. And we found and removed 10 respondents whose we found that and waxaan helnay oona ka saarnay meeshaan 10 qof oo 10% of their responses were missing. Okay, whose 10% of their responses were missing. mujda waxaan sameynay waxa loo yaqaano data cleanup waxaan helnay oona ka saarnay 10 qof oo jawaabooda ay maqnaayeen saxna soma that's one. waxaa kaloo dhanaa we also removed kuwii unengaged oo attentionkooda u joogin labay ahayn. We also removed 2 respondents who were unengaged as evidenced by their same responses. waxaan marka hore waxa ribot gelinaysa waxaan leenahay marka 10 waa saarnay waxaa kaloo saarnay 2 qof kuwaas oo unengaged ahaa attentionkooda u soo joogin sida ay ka muuqatayba their responses. That's it. marka you don't need inaad dhahdid qof kuwaas laba hebel aan saarnay marka that is waxa loo yaqaano laba shay hadda maanta barani oo lahayd unengaged dadka aan attentionkooda joogin see la yeelaa iyo missing data see la yeelaa. qodobkuna ugu dambeeya waxa waaye imputation maxaa la lahaa dadka data on oo missingka ahaa dad aan saarnayaa jiro waa dadkii 10% ka badan laakiin dad aan reebnayaa jiro waa 5 iyo 4 dadka kuwaas see la yeelaa. su-aashu waa taas kuwaas waxaa yeelaynaa waxa loo yaqaana imputation maxaa la lahaa waxaa aadaa SPSS markaad tagto waa inaad taqaanaa kuwa daatadooda missingka tahaya kuwa daatadooda missingka tahay seen ku ogaanaynaa we need to go analyze descriptive aan dooranaynaa then waxaan dhahaynaa frequency halaas ma soo socnaa frequency markaa dhahdo wax kasto inta soo geli. hadda horta tablekii aan hadda nadiifinay meeshiisa aan kasoo qaadaynaa kuwan oo hadda aan nadiifinay maadaama ayaga meesha ka saarnay kuwaanaan soo koobiyeynaynaa waxaan soo dhex dhigaynaa copy noo dhah
marka control c dheh kadib waxay maadaa SPSS-ka control a dheh kan iska tir kadib control v ku dheh waa ka datadan waa kuwii hadda aan kusoo nadiifinay excel then hadda waxaa aadaynaa analyze kadib waxaan dhahaynaa descriptive kadib waxaan dhahaynaa frequency tablekan ha ku dornaado wax kasta meeshan soo geli kadib waxaa dhahaynaa okay waxaan hadda dhahaynaa marka okay waa analyze galinaya datada 700 wax ka badan ah okay it's taking a little bit time let us wait okay now hadda waxaa ujeedaa education waxaa ka maqan labo meel loogu qor hadda ya education waxaa ka maqan labo okay education waxaa maqan labo kuwan kale wax ma ka maqno iyo kale wax ka maqan yihiin education oo haya head e-commerce 3 kan 3 kuwan 6 okay almuhim head explain e-boat iyo education afartaas waxaa naga maqan missing data kuwaas marka hadda aadayna waxaan dhahayna transform markaa tagto waxaad dooranaysaa replace missing values ila socya replace transform kadib replace missing value kadib waxaan dhahaa kuwa waxay ka maqan yahay waa education waa head waa explain waa boat afartaas way maqan yihiin inta soo dhexgeli marka inta soo dhexgeliso hadda marka arrinaa rabo inaan sheego daatada hadday tahay ordinal dadka missingka daatadoodu tahay meesha maqan always waxaa loo ekeysiyaa medianka laakiin daatada hadday tahay continuous tusaale ahaan dadka agekooda toosay gacanta ugu qorayaan 25 aan jiraa 30 aan jiraa daatada noocaas waxaa loo yaqaanaa continuous markay tahay meanka loo ekeysiyaa wixii missing ah marka hadda ordinal hadday tahay median ku ekeysi marka waxaan leenahay kan koowaad waan bedelaynaa markaan bedelno waxaan ka dhigi doonaa median so because education waa ordinal soma marka all missing wixii ah kulli waxaa ka dhigtaa medianka education change number 1 waa bedel number 2 waxaan leenahay sidii hadda kale qaybtan numberka tir magaca soo buuxinoonaa kadib kan waa ordinal hadday tahay meanka ma u ekeysiinaa wixii maqan mise median u ekeysi change the same kan kale saddexaad asina waa isla sidii waxaan leenahay wixii maqan waxaa u ekeysiisaa median kadib change kan ugu dambeeya weli waa asigana waxa loo yaqaanaa ordinal therefore median u ekeysi haddii uu ahaa lahaa continuous oo scale waxaas uu ahaa lahaa maxaan u ekeysi lahaa meeshaan median dhihi lehna waxaan dhihi lahaa mean of nearby hadda median of nearby okay change okay hadda change existing wixii ah dhan waa bedelona okay bedel leh hadda marka waxaan dhahaa noo celi therefore waxaan dhahaa transform analyze waa fiirinaa missing wixii inay bedelmeen analyze then frequency tag kadib waxaa dhahdaa everything kuwan dhan iga dhaaf hataa I don't need afarta hadda leekan bis kuwa hadda aan soo bedelay fiiri kadib inta soo geli kadib okay dheh aan aragna wixii isdhaay okay wonderful education wax ma ka maqan hadda education wax ma ka maqno okay wait okay hadda fiiri marka education maxaa ka maqan 0 kii kale head e-commerce 0 explain 0 everything is 0 mujida taas micnaheedu waxa waaye haddii aan ku celiyo marka haddii daatadu ay 2 iyo 3 wax ka maqan yihiin qofkaas ha ka wada saaray analysis-kaada ee daatadiis imputation ku sameey markaan imputation ka sameynaysin daatada noocay tahay la soc waxa maqan ordinal mise waa scale haddii ordinal uu maqan yahay waxaa ku samaysaa median ku ekeysi haddii laakiin wax maqan yihiin continuous data ay yihiin waxaa u ekeysiisaa mean ku ekeysi median iyo mean ordinal hadday tahay median ku ekeysi haddii kale waxaa u ekeysiisaa meanka خلاص مثل فن مركا عشر كان قيبته وين سنة قيبته سواء assignment هذا كذا تيجي مركا comment كنا كسو قرتينا الروا قف كل سعد الفيديو قال ما قاب وهرتي كرتا دتك attention كود أن جوجن إني questionnaire كذا كقيب قاتان أنت قيب استعمال كرتي جوابته خاص كسو قر
videoga kale aan noo balana. Asalaamu calaykum. Haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad channelkan muuqaal ka daawato, waxaan kaa codsanayaa inaad riixdo subscribe si aad qayb ugu noqoto bulshada aan halkan ku dhisayno. Haddiise aad doonayso in fariim ahaan aad u hesho had iyo jeer wixii aan ku soo kordhino channelkan, waxaad riixi kartaa sumadda u eg gambaleelka ee ku taalla dhanka midig ee subscribe. Mahadsanid.